wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye ayaa maanta si rasmi xilkii ugu kala wareejiyay barasaabkii hore gobolka Saraar Ibraahim Xasan Cali iyo barasaabka cusub ee gobolka Saraar loo soo magacaabay Axmed Maxamed Xaashi. Munaasabadda xilka ay kula wareegayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay مسؤولين كلا سعتي قبلة صال يتغير ما يرد دقموين كقبلك عقاش وحجرات كسولادين تعليم ودين تدوياش يحبنا كلا أعضو ترابضان وقهرين بوهالك سكاضي ما يركد دقمة عن نبا برسابك حجين كقبل كسرار ما يركد دقمة برعو ما يركد دقمة الله سعنات برسابك قبل كصال سولادين عقال يمسؤولين كلا kuwaasoo dhammaantood basi sagootiyay barasaabkii hore gobolka Saraar Ibraahim Xasan Cali oo ku tilmaameen inuu ahaa mas'uul ku suntaan wax qabad iyo furfurnaan. maanta waxaan sii dhaweynaynaa oo sagooteena iyo marti sharafta kalaba gudoomiye halkan gobolkan lagu soo bedelay waa gobol baaxad weyn oo 200 kilomitir waqooyi hadda uu ka xigo halka waa gobol abaar badan ku habsato sanadkii hore gobolada abaar buuxdu ahayd gobolku wuxuu isu jiraa 260 kilomitir hargeysaad ka imanaysa markaasaad berbera soo dhaafaysa markaasaad laalay simanaysa wuxuu leeyahay 6 degmo iyo gobolkii ayay ku yaalaan wuxuu leeyahay eelbiyoodo ay caynabo durdur ugu horeyso aan waxay ka soo qayb galo xil wareejinta labada barasaabkii hore Sheekh Ibraahim iyo barasaabkan cusub barasaabka hore si gaar ah anigu waa sheekhaygii aan u sii sagootiyo labada barasaab oo galbeena wasiirka barasaabka hore galbeena barasaabka cusub soo galbeena waxaan leenahay barasaabka cusub waanu ducayna waxna ilaahay xilka ku asturo aanu ku ballan qaadayna anagoo ku hadlayna afka uqaash iyo afka deegaanka iyo afka beeraha iyo inta aad xukumi doonto hadii ilaahay nagu simo waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu baaral ku noqono oo kula shaqayno waxbayaan lagu dhuubin gobolku gobol hawl badan hawshan badan horta ballaaran u soo dhawow waxaan qoran lahaa haddii beero la fali lahaa iyo haddii horumar la samayn lahaaba gobolka dadkii deganaa dhowr laba qaybood buu noqday qaybi waa tahdiibto dalka waa ka tagtay qaybina hargeysa u tahdiibtay waxaan leeyahay waxaad noo gasho waxa aad qabataan wax kuugu qabanaynaa ku dafiri mayno aanu ka abaalka dari mayno uqaashiisa waanahay maxay ahayd toyna waxaan aad iyo aad kugu soo dhaweynayaa aniga oo maxay tahay ka wakiila gobolkan waan ku soo dhaweynaa aad baan ku soo dhaweynaa waana kula shaqeynaa barasaabkii hore gobolka Saraar Ibraahim Xasan Cali ayaa si qoto dheer uga xog waramay mudadii koobnayd ee gobolka Saraar joogay waxyaabihii qabsoomay isagoo shacabka gobolka Saraarna ka codsaday inay la shaqeeyaan barasaabka cusub si uu guto hawlihiisa shaqo iyadoo barasaabka cusub ee gobolka Saraar mudane Axmed Maxamed Xaashi oo shacabka gobolka Saraar ka codsaday inay gacan ku siiyaan si uu gudan lahaa hawlaha baaxadda leh ee hor yaala aad iyo aad baan runtii aan u soo dhaweynayaa barasaabka waxaan leeyahay bulshadu hala shaqeyso gudoomiyaha waa nin cusub inta isbaranaysaan inta shaqadiisa baranaysaan waxa weey inay soo dhaweysaan oo wuxuu tilmaantaan oo u warantaan wax hataa qalad ku aragtaan aydan runtii xaman ama aydan meelaha ugu shirine oo sheegtaan oo baraarujisaan inuu ka rajeynayna aniguna kaadiruunde kulmiye kamid ah xukuumadda hore la soo shaqeeyay baan ahay xil la deelayga ma qaadin aniga xilka madaxweynuhu hore ay magacaabo waqtigiisa baa dhamaaday waa wareejino dawlad cusub madaxweynuhu soo dhisayo xilkii uu barasaab cusub soo magacaabay laakiin xil laga qaaday horta maanta waa maalin farxad weyn oo ilaa burco ilaa sool waa la wada jooga gobolkan horumarkiisa iyo waxa doonaysaanba sidii nabadgelyada u sugno ay horta wax walba ku xidhan idinku tiina xaqiina ku tala gala hadduu caaqil yahay hadduu suldaan yahay ugaas yahay iyo odayaasha kaleba laamaha kale dawladda priority-ga leh ee aynu doonayna inaynu sideen horumarkii gobolka u soo kicino aynu sugnaawo nabadgelyada ugu horeysa xaqiinana ku talagala aniguna xooggaa saaraya taa aad sheegteen shaqooyinka faradan yaalana waan qaato aniga idin sheegay dhabarkaan u ridanayaa hadhiyo habeenba waan idin taagnaanayaa ilaa dadweynaha loo shaqeynayaa cibaadada gelaysa halis
nabadgelyadu waxay muftaax u tahay in alla intii waxqabadahoo dhan ee bini aadan ka shaqeeyo hadallada qaar waa ku yar celcelisaan waxaa tidhahdaa waan qolooyinka iyagani waxoogaa fudayda ama waanu isku ficilkayagaa yar badan war ficilkaasi waa ficil shaydaana isku ogaada ficilkaasi ficil caadiya maaha ilaahay khayraadkiisu raficiyo waad ogtihiin maanta meel dhiig bini aadam ku daadanaya 24 saacadood khatarteeday leedahay ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed muuse diiriye ayaa si rasmiya xilkii ugu kala wareejiyey labada barasaab ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaado sharafi lagu guddoonsiiyey barasaabkii hore gobolka saraar ibraahim xasan cali waxaana shahaado sharafidaasi guddoonsiiyey wasaaradda caafimaadka gobolka iyo weliba bahweynta dhallinyarada ee gobolka saraar jaamac boodacadee warbaahinta qaranka somalilan caynaba